الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نشان خيارات قيمها بدن له مدرسة كسوغن كقريب قادة برنامج كتنتك على بورك جناحك كجامعة قلدون الدلكها وهذه كم هذا قلنا سيد ديرنا دو قريب قادة برنامج وحكلون ما هذا قلنا أنت وربعين تكلا شعوتا يدا ما با أنت حير كتوس قال له برنامج ترتك على بورك جناحك كجامعة سنة كلا بده يكون لبيه لباتن ومال قلني بنك عالمية بريمير بانك إن برامجنا أيام بالأمانة وقت كوسكوبن وهنشعل برامجنا إن وغرينا نيورنا حمناها جودية أيام متبدو سود ويندونا صعب كده يقول سود ويندوتان وهنيوردونا قداميها جودية كلا ساردا نيرتا قويها كا أنا هلا بورك برامجها بروفيسور مبارك إبراهيم آر صعب كده يقول تمي سود وين وهكذا نيوردونا عبد الرحمن علي حرسي أو كمدا جناحة هذا استمر كعشان كمدا جودية هبكن عوال كان وحكوا كلا ساريسا عبد الرحمن اللي سودوية وحنو يريا عبدي يوسف آر ويسوون كم من نقطة أنا حملها جانا هل كنت تكون كلا سارية عوا يجود جينا وقدامي وحنو يريا إسماعيل معاد أو نقطة أنا حملها حبيت جود جودن بيسا هل كان هبي كان عوا نكسو ودوينه سودو إسماعيل وكم عبدي يوسف آر cabdi yuusuf aar waa ganacsade waxa uu 15 sano ee u dambeeyay ahaa maamulaha guud ee sharikadda caanka ah ee Sagaljad waxa uu hore uga soo shaqeeyay sharikaddii Bitag oo uu ahaa madaxa suuqgeynta iyo iibka sharikadda MSG Trading Company oo uu iyadana ahaa madaxa iibka waxa uu cabdi digriga koowaad ku qaatay maamulka iyo ganacsiga waxaanu hadda wadaa digrigii labaad waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi cabdiraxmaan cali xirsi waxa uu shahaadada heerka labaad ee masters ka qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia waxaana uu ku takhasusay arrimaha maamulka iyo ganacsiga waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda PSI oo uu maamulayay mashaariic kala duwan sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay hay'adda Africa Education Trust iyo Handicap International cabdiraxmaan waa asaasaha iyo gudoomiyaha sharikadda Hasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhammaan geeska Afrika isla markaana xarumo ku leh magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ismaaciil Meecad wuxuu shahaadada heerka labaad ee masterta ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London Ismaaciil waxa uu ka mid yahay maamulka sare ee sharikadda Meecad Group waana asaasaha xarunta tababarka iyo shaqaabuurka dhalinyarada ee loo yaqaano Borama Job Center taas oo kumanaan dhalinyaro ahi xirfado iyo carbis shaqaba kaga faa'iideysteen Ismaaciil Meecad waa aqoon-yahan ganacsato ah oo aqoon iyo khibrad durugsanba u leh maamulka hogaaminta iyo hal-abuurka waa kuma Mubaarak Ibraahin Aar waa hal-abuuraha iyo madaxa barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga waana gudoomiyaha jaamacadda Beder waxaynu si toos ah u wada gudagali doonaa daawadeel barnaamijka xisaab badan leh tartanka hal-abuurka ganacsiga ee jaamacadaha dalka ee sanadka 2022 oo bangiga caalamiga Premier Bank ugu talagalay macaamiishiisa iyo bulshada kale ee reer Soomaaliya iyo inta Soomaaliya ku hadashay in ay ka faa'iideystaan bisha barkisan Ramadanta waa barnaamij xambaarsan macluumaad la xiriira dhinaca ganacsiga waxa lagu tartamayaa in ka badan 22 mashruuc oo ku tartamaya arday kala duwan oo ka kala socota jaamacadaha 6 gobol ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland habeenkan caawa waxa barnaamijka ka qayb qaadan doona 5 group oo ka kala socda jaamacadaha kala duwan ee Adal University ee Borama أن آذن أو كمية جامعة هرجيسة ريفت فالي أو جامعة هرجيسة جولس هرجيسة سناج عرقابو شان تاسي جامعات شان مشروع عادو قيمة بعض بكتر تميان هبين كان عواوحن وهريسين دونا كانت كوبادنا هل كان إيمان دونا كل هذا كتر تمسا جامعة أدل يونيفرسيتي مجال بورما أو كتر تميان مشروع اللي هذا استراح بلاي جراوند وحنكون سودو وين هل كان أرداد كتر تمسا جامعة داسي يا مشروع عاسي سودو هذا وكوها بلينا إن تكسر وش برامج حساب بدل ترتك على بوركة جامعة سومالان هذا كسر جامعة أدل يونيفرسيتي بورما إمسا أرضي وكلا كوه لي مشروعا على أرضي بيجوه لي عبد الرحمن أبي بعدين وتهاي عبد الرحمن أدبان دي بلينا دي عبد الرحمن با ما قاعد تكون بلعب دونتها ولي برامج كهرباء موقع قبل شيء مية مركب جوه ريسن كقاب قلا ما لسه توربين تمكن لسه السنة دي هراء داون شري إن أنا استشابيون فكر كي صابان دقة. بعد ما حسنت هاي ما قاعد تقول بلاد. ما قاعد يقول ملعي حسن.
amal halkan waxaad ku haysataa barnaamijka si joogta ah la socotay kuwii horena waad ka qayb qaato indhahaad kala socon jirtay caawa haddii aad diyaar u tahay inaad istijaabiso waxaan kugu soo dhaweynayaa in 3 daqiiqo hore aad mashruuca ama barnaamijka aad ku bandhigaysaan halkan Istiraah Playground aad bulshada ka iibiso kadibna lagu qiimeyn doonaa wixii inta ka dambeeyna waxaan u gudbi doonaa wareegyada kale oo kugu soo dhaweynayaa adiga iyo xubnaha guddiga ku dhawahay walaal waa mahadsan tahay barnaamijkan ka qayb galay waxaa la yidhaha Istiraah Playground waa meel ay ku ciyaarayaan sidii magaceegaba ka cad ciyaalku taasoo gabi ahaanba ka jirin magaalada Boorama muhiimadda barnaamijkan waa inuu daboolo baahiyaha ka jira magaalada guud ahaan baahida loo qabo mashruucan ayaa waxay tahay keejiyada ama iskuulada maalmaha holiday-ga ay leeyihiin ama fasaxyada goonida ay leeyihiin inaan la helin meel la geeyo ciyaalka oo la geeyo garoomada kubadda cagta waxaa jira boqolkiiba 75 waxaa jira in loo soo safro magaalada Hargeysa si ay ciyaalku u helaan meel ay ku ciyaaraan xisaab ahaan haddaan eego kharashka ku baxaya waa $8,000 alaabtii wax walba waxay ku xusan yihiin waraaqaha intay noogu imanayaan iyo intay taagan yihiinba xisaabta haddaan galo kharashiyan bishii naga baxaya waa 765 Boorama waxaa ku yaala markaan sameeyay research 18,000 oo guri waxaan ka soo qaadanaa inay noo yimaadaan 100 qoys 100ka qoys oo celcelis ahaan aan nidhi 5 ciyaal noo iman kara maalinta jimcaha waxa noo iman kara 100 qoys 100ka qoys oo celcelis ahaan nidhi 5 ciyaal iyo qoyskiiba wataan soo galida ugu horeysa waxa laga qaadayaa 10,000 oo shilin 10,000 markaan 500 ciyaal ku dhufano waxay noqonaysaa 5 milyan oo u dhigata $600 waxaa jira qalabku wuxuu kala qaybsan yahay 2 qaybood qayb waa electronic qaybna waa manual qaybta electroniga mid walba waxa lagu fuuli doonaa 0.5 haddaan eegno ciyaalku waxay xiiseynayaan 85% ciyaalku waxay xiiseynayaan inay koraan electroniga waxay noqonaysaa xisaab ahaan iyo celcelis ahaan lacag dhan qaybta electroniga waxay noqonaysaa lacag dhan 696 waxa jirta iyadna meelan kaga duwanaan doono meelaha jira oo swim poolka calaa qof oo swim pool ciyaalka u khaasa waxaan calaa qof u xisaabnay $2 haddii ay maalintii tusaale ahaan noo imaadaan 40 qof waxay noqonaysaa $280 lacagta markaan isku celcelino jimcaha oo kaliya waxaana soo gali kara $1,576 aad baad u mahadsantahay waxaan jeclahay amal sacabkan inaad igala tuntaan iga soo dhaweysaan amal waan kugu bogaadinaya waqtigaaga aad si fiican uga faa'iideystay saddexda mid waxaad qaadatay u horeeyay waxaan jeclahay xubnaha guddiga inaan ku weydiiyo bal dhibcaha horeeyay barnaamijkaaga si sida u arkayaan maadaama tir waa qayb ku cusub Boorama in halkan macaawa ay go'aan ka horeeyay ku gaadhaan xubnaha guddiga intaynaan su'aalaha igu gelin istifaaci barnaamijkaaga Cabdiraxmaan Cali Xashi amal mashruuceeda soo aragtay bismillaah raxmaan raxiim amal iyo laba qof baa tiin Cabdiraxmaan iyo Cabdiraxmaan waan idin hambalyeeynaya waan idin bogaadinaya ilaahayna waxaan idin rajeynayaa inuu idinku guuleeyo halkan ama wax ka dambeeya waxaan qiimeyntii horta mashruuc aad u wanaagsan oo runtii aad u qiimo badan istifaaceedana hadhowto waan eegi doonaa 45 ayaan ku bilaabay waa tahay Cabdi Ishwar way marka koowaad waa barnaamijkan waa barnaamij runtii qurux badan sida ay amal sheegtay ama halkan ku qoranna kama jiro magaalada Boorama waxyaabo badan baa kulley aan ka weydiin doonaa su'aalo aniga iyo guddigu laakiin qiimeynta hore 50% waa tahay Ismaaciil Alxasan Ismaaciil Macali aad baan idin salaamayaa amaliya tiimkana aad baan u soo dhaweynayaa barnaamij saasoo horta u shaqeeya orinteeda magaalada kama jiro waanan soo dhaweynaynaa qiimeynteeda koowaad waxaan siin lahaa 50%. aad baad mahadsantihiin amal waa tahay oo ku bogaadinayd kaligaa difaacato
waxaan rajaynayaa su'aalaha halka 10 daqiiqaad haysataa haddii 10 daqiiqo guddiga ay ku bogan weydo iyagaa ku darsan doono minutes kale dheeraada laakiin waxaan ku rajaynayaa in aad si fiican u difaacdo dhibcahaguna insha Allah ay ku kordhaan waxa idin kala baxaya adiga guddida waxaan u dhiibayaa ugu horeysiin doonaa Cabdi Yuusuf waxaad in yar dib noogu noqotaa waxyaabaha lagu kala saarayo qorshayowgan ganacsi ee ardayda jaamacaduhu ay ku tartamayaan waxaa ka mid ah inuu ganacsigu yahay mid si fudud loo hirgelin karo waa kow inuu noqdo fikir cusub ama wax qiraac cusub inuu noqdo mid faa'iido leh bal adigoo mar labaad ku celinaya noo sharax faa'iidada aad ka samayn karto midda kale ganacsigani adiga siduu kuugu fududaanaya maadaama khibrad hore oo qalabkan lagu ciyaarayay iyo meelaha laga soo iibsanayo waxa aanad hore u lahayn ma noo sharaxi kartaa sida aad si fudud ugu hirgelin karto haddaan su-aasha isku dayo xisaabaadka maalinta jimcaha oo kale boorama waxaa ku yaala 18,000 oo guri sidaan kasoo qornay xog ururin meesha biyaha shaaba 18,000 ee guri waxaan ka soo qaadanay 100 qoys 100kaa qoys celcelis ahaan waxaan soo qaadanay inay 5 ciyaala oo qoyskiiba wato 5taa ciyaala soo galida uu ka soo galayo albaabka hore ee playgroundku waa 10,000 oo shilin calaa qof lacagtaas waxay u dhigantaa lacag 5,000 oo milyan ah dollar ahaan u dhigmaysa 600 oo dollar ha 600 oo dollar waxa jira qalabka electronic iyo waxa loo kala qaybiyaa ku maniwalka waxa ku jira shiirinbiridii oo kale waxyaabaha ay ciyaalku ka soo siibtaan electronicna waxa kamid ah doontii fardaha waxa soo miidhan ayaa kamid ah marka electroniga uu ka qaalisnaanaya kan ay ku soo galeen 10,000 oo calaa shay wuxuu fuulayaa 0.5 mashruucani aad buu uga balaaray in 8,000 oo dollar lagu furo laakiin waxaan sameynaa anagu waxaan badinay alaabta aan ahayn electroniga taas oo xoog u jaban waxaan haysanaa jago cadadkeegu yahay 60 wayna waxaana ku wareegsan deyr waxaan naga dhiman inaan hadhayno ciid aan ku sinno aan hagaajino khibrad hore miyaad u leedahay khibrad waxaan ahay horta hooyo ilmaheega cid uga dhow ma jirta dee ciyaarsiin hadday noqoto ilmaha ciyaalkana waxaan isleeyahay khibradaad ku ciyaarsiisid waad leedahay sidoo kale waxaan intaan ku jirnay soo baadhnay oon la soo heshiinay qolooyinkan iminka Hargeysa ka shaqeeya kuwaasoo nagu yiri waxaan kaa caawin doonaa injineer ahaan kuna bari doonaa waxaad nooga baahan tahay way halkan kharashka markaad dejinaysay swimming pool baa qoran 800 dollar ma swimming pool ka dhan baa 800 dollar ku dhisaysa swimming pool ku kiila dhisay ma aha waa ku yaro ciyaal oo aad u yar oo ciyaalka wax under 5 ah ciyaalka under 5 6 4 waxa ay ku ciyaareen ma aha swimming pool weyn waa swimming pool ciyaal ah qalabkan halkeed ka soo iibsanay waxaan ka soo iibsanayaa Turkiga waxaan la hadlay dilaaliin page-ka laga dalbanayna waan hayaa mar labaad waan ku hambaliyeynayaa barnaamijkana waxaan rajaynayaa inuu ku hirgalo baaxadda uu leeyahay barnaamijka aad gelayso iyo sidaad uga fikirayso waxaad moodaa inay kala ballaaran tahay tusaale ahaan waxaa halkan ku qoran meel carruurta ku ciyaarto waxaa ku qoran dukaan lagu iibiyo alaabada ciyaalku ay ku ciyaaraan waxaa kaloo ku qoran swimming pool waa 3 mashruuc oo mid waliba uu leeyahay culayskiisa waxaa kaloo haddana ku qoran artskii iyo waxyaabihii sawirada iyo waxyaaba caynkaas oo kale in lagu samaynayo lacagta intan iminka aad sheegtay tusaale ahaan aad soo qortay 8,000 mooyaane maxaad is leedahay way ku baxayaanee kale waayo swimming poolko keliya haddii xataa meel ay 2 ciyaal ku ciyaari karaan laga dhigo ama ay ku dabaalan karaan wuxuu u baahan yahay qaabkii biyaha looga saarayey wuxuu u baahan yahay dawo wuxuu u baahan yahay maaragtay biyo maaragtay kolba lagu shubo haddana laga saaro marka sidee bay macne
lacagtan aad soo dalbatay halkan ku qoran mooyaane mashruuca maxaa kale ku baxaya horta mashruuca waxaa ku baxaya intaan soo dalbanay ee 8,000 siday ugu baxayaanba waxay tahay waxa khibrad naga caawinaysa qolo imkaba ku shaqaysa swimming poolka Hargeysa marka waxayna siin doonaan tababaro ama waxayna tababari doonaan shaqaalayaal gooniya oo ku shaqeeya shaqada ma eeg hadda waxaan su'aashan ku weydiinay waxa weeye cost baan ka hadlayaa fartii la qaadaaba waa lacag marka business laga hadlayo waxaan u baahanahay inaan realistic noqono oo aan wax kasta oo aan qabanayno lacag bay ku qiimaysan yihiin barkad marka la sameynayo tusaale ahaan balli ama swimming pool waa balli meel baa la jeexayaa dhul baa la qodayaa lacag baa ku baxaysa waa la sibdhinayaa lacag baa ku baxaysa waxa loo sameynayaa biyaha wixii laga saarayay wixii lagu shubay dawooyin gaar ah bay leeyihiin maartay meelaha lagu dabaasho oo biyuhu kharibmayaan marka intaas oo qof galaan marka sidee bay $800 ay u noqon karaysaa wax yani waxaan sameeya taas waa mid marka waxaan ka hadlay scope-ka yani xadka uu businesskaagu leeyahay iyo lacagta aad ka fikiraysaa siday isu leeg tahay ama ay isu qabanayso waa su'aal su'aasha labaadna waxa weeyaan waxaad sheegtay 1,500 in dakhliga ku soo galaya jimcihii ay tahay kharashka jimcihii ka baxaya iyaguna maxay noqonayaan waxay noqonayaan haddaan tan dambe ku horeeyo waxay noqonayaan shaqaale temporary qoran oo calaa qof gelin dambuun bay shaqaynaysaa meesha 2 ilaa iyo 8 habeenimo waxay qaadan doonaan calaa qof $5 marka waa $30 maalintaa waxa baxaya iyo biyihii iyo qashin biyuhu markaa waxay noqonayaan ku billa raaca oo ma noqonayo maalinle laakiin maalinle waxa baxaya $30 in la siinayo shaqaalaha temporary-ga waayo shaqaalaha temporary kuma shaqeeyaan si billa ah uma shaqeeyaan maalintii shaqeeyaan waa la siiyaa lacagta tan kale ah 800 swimming pool lagu sameynaysaa swimming pool kan sameynayo maaha kii dhulka la qoday waxa jira ku diyaarsan oo cariish yar ah ama waxaan ciyaalku ku ciyaaraan oo kale ka samaysan oo isagu diyaarsan oo macal meeshii biyaha laga sii daynayay la dawooyinka iyo waxaan lagu wada darayo oo dhanna isaga wata marka wuxuu noqonayaa $400 baa ku qoran imika online-ka ama siday noo soo gudbiyeen kuwan dilaaliintu $400 ee kale waxaan u dul dhigay si aan $100 waa imashadiisii $300 ee kale waxaan u dul dhigay si wuxuu u baahan yahay in tuumbada yar loo dalooliyo oo meel la geeyo sida horta design ahaan waxay meesheedu noqonaysaa qayb suuliyadiiya iyo qayb hadha iyo qayb kaloo receptionka waxaan ka dhex sameynaynaa khaanado yaryar oo khaanadahaasoo ahaan doona kuwa yaroo qalabkan ku iibino qalabkan aan doonayna inaan iibinina waxa weeyaan buubeeyada yaryar allah mustacaan madaabadaha yaryar waxaasna waxa ku kacaysa lacag dhan keenidooda iyo design ahaantooda $500 waan gartay mahadsantihiin amal aad baan ku salaamayaa adiyo inaan kaleed wada shaqaynaysaan baan soo dhaweynaa mar kale kule fikirka waa loo baahan yahay dhinaca businesska markaad ka eegto iyaan su'aalo badan aan ka qabaa iga horeysaana waxa weeyaan qalabkii waad soo qortay dayr xiran oo 66 waad sheegtay hadda ugu dambeyn waxaad sheegtay in masquulo loo baahan yahay reception loo baahan yahay hard in loo baahan yahay saddexdaasi qarashka ku kacay miyaad garanaysaa intay leedahay musqusha iyo dayr iyo hadhaynta musqusha iyo receptionka iyo hadhayntaasi kharash xaggan ugumaad qorin haarun marka miyaanay lacag hayn iyagu afkaan kaaga sheegay inta waxa weeyaan musqusha calaa musqul macalaa maxay ahaday marmarkeegii waa $500 hadhayntana intaan doonaynay inaan hadhayno waa $450 marka hal musqul baad dhisaysaan oo 500 qof filaysaan hal musqul baad u dhisaysaan miya mee 2 musqul baan dhisaynaa marka xagga waxaan qoray lacag ah 1,500 oo diyaarinta meesha ah iyo 500 oo kale lightka iyo waxa marka lacagta marka la isku geeyo waa $200 lacag kale waxa jirta meesha ku jirta depot ah on dhigay on lahaa yani waxa loo baahday emergency-ga waa lagu qabanaya marka lacag ahaan waxa imka noo yaala
marka laga reebo intaan alaabta ku dalbanayno 2,450 xaggan laakiin kuma cadde gaar baad u haysataan cleaninka waa ka ugu horeysa 1,500 baa ku yaala $1,000 baa ku qoran oo meesha diyaarinteedii laakiin dhismo maaha taasi ha waa diyaarin baad ku qoratay 500 oo kalena waxay ku qoran tahay waayo aan su-aasha labaad u gudbo waxaad qorshaysanaysaa inay jimcaha 500 oo qof ay meesha soo booqdaan sideed ku go'aamisay nambarka marka laga yimaado intaasoo kunbaa magaalada degan iyo intaasan qiyaasaya goobahan lagu ciyaaray hadda Hargeysa jimcayaasha marmarkaad tagto dee saxmad intaa leega 500 joogto waxaa laga yaabaa inaad ku arag Hargeysa ka weyn Boorama marka sideed ku go'aaminaysaa ma waxaan ku go'aaminayaa inay tahay maxay ahaday waxan wax cusub shaygu markuu cusub yahayna una ka jirin magaaladii aad buu u shaqaynayaa ta kale waxaan la heshiin doonaa oo taarkadii macmiil ahaan marka laga tago heejiyada iyo iskuulada maalmaha fasaxa inay igu soo xidhaan ciyaalka waa mahadsantahay aad baad mahadsantihiin waxaan filayaa in su-aalihii ay ka bogteen xubnaha guddiga halkan fadhiya amal iyo cabdiraxmaan waxaan u rajeynayaa inay guulaystaan istifaacooduna kolley ama wuxuu kordhiyaan anuu rajeynaya haddaan waxba iska dhiminba waxaan ku horeynayaa ismaaciil meecaad oo u dambeeyey isagu su-aalihii u dambeeyey amal weydiiyey ismaaciil marka hore waxaad bixisay 50% maxaa aragtaada hore iska bedelay run ahaantii dhinaca businesska dhinaca fikraddu waa wanaagsan tahay baahi weynna waa loo qabaa laakiin suurtagalnimada ganacsigaasi iyo kharashaadka u baahan yahay iyo practically khibradaha ay u baahan toonan ii muuqan darteed 5 baan ka jiray waa tahay cabdi yuusuf anigu 5% umanu daayay waa tahay cabdiraxmaan cali xasan runtii fikradda sida Ismaaciil sheegay waa fikrad aad u fiican oo qurux badan laakiin lacagta hadda qoran iyo qorshaha hadda qoran way ka ballaaran tahay anigoo ku dhiiri gelinaya inay dib ugu noqoto fikradda ay maaragtay ka soo mar labaad ay dib uga fikirto because waa wax loo baahan yahay 5 baan ugu daray waa tahay aad baad u mahadsantihiin amaal iyo cabdiraxmaan waxaan idin rajeynayaa inaad guulaysataan insha allah maarkiiskiinuna intaa kasii kordhidana way kusoo dhaweynaya amaal la soo dhaweeya aad baan u bogaadinayaa amaal iyo oo ka socda jaamacadda adal waa amaal iyo cabdiraxmaan soo bandhigay mashruuca Stretch Playground daawadaalintaas waxaan ku soo gabagabeynaa qayb ka mid ah wareegga saddexaad oo ay ku tartamayeen jaamacado kala duwan tiimkan iyo kooxdan tartamayna waxaan u rajeynayaa inay guulaystaan isla markaasina ka soo dhaxbaxaan saaxiibadooda kale barnaamijkan mid lamid ah ku kulmayna waxaan u mahadnaqay xubnaha guddiga barnaamijka kala saaraysay ee dadweynihii qaybta ka ahaa howleenadii saxaafadda ee taagnaa muddadii dheereed ee barnaamijka la kala saarayay sidii ay u tumin lahayn sawirro iyo muuqaalo qurux badan ee madaxa barnaamijka Professor R iyo dhammaanba howleenada iyo maamulka iyo mas'uuliyiinta bangiga caalamiga ah ee Premier Bank oo uu hagar baxay inuu maalgeliyo barnaamijkan kale oo kala mid ah ku kulma dhamaantiin ku dhaafnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaal safarkaygii Turkiga saacada ka hadhay lacagta inta leegna safar lama geli karayo waxaan doonayaa lacagta inaan ku sii dhiibo si aad iiga soo daba dirto waa dahooy taleefanka carruurta kula haystee hayga qaban waaye walaalay sodagii ilbaxa ahaa si ka noqotay maanta had ma laga tagay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag laga soo daba dira iyo taleefan aad ka soo hadasho kugu hawlay soo tan Premier Bank noqotay hawl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolaha kay ku daba sidaysa oo aan koon baaba ku leeyahay lacagtaan dhigtay ma iyaga iga soo daba diraya balina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idinka caawiyaa Mastercard baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel